kooxahani uu xafiisku kala diraya soo sameyn doono diiwaangelinta dhulbeereedka si loo ogaado guud ahaan dhulbeereedka gobolada iyo degmooyinka deegaanka beeraleyduna u helaan xujada ama lahaanshaha dhulka. Ujeedada xafiisku kooxahani gobolada ugu dareeya ah sidii beeraleydu u heli lahaayeen lahaanshaha dhulka lana qorsheynay in beeraleydu helaan aqoonsiga lahaanshaha dhulka kadibna ay maalgelin ku helaan. xukuumadda iyo bangiyaduna ka wada hadleen si beeraleyda loo siin lahaa diin iyo maalgelin dhanka kalena looga baaqsan lahaa isku dhacyada dhinacyada dhulka ee beeraleyda. Mas-uuliyiinta xafiiska ilaalinta deegaanka iyo maamulka dhulka miyiga ayaa kooxahani kula dardaarmay inay si lahaansho leh u soo qabtaan shaqada loo igmaday. dhammaan shaqaalaha xafiiska iyo xubnaha technicalka ah ee halkan joogo waan aaga mahadcelinayaa sida quruxda badan leh oo ay u soo ajiibeen waqtiga loo qabtay. ta xigta waxaad ogsoon tihiin ka deegaan Soomaali ahaan anagu deegaankeena inta badan bulshada ku nool waa laba nooc oo bulsho waa xoolo dhaqato ama beeraley. marka guud ahaan waxaan nidhaahnaa bulshada deegaanka Soomaalida waa xoolo dhaqato beeraley baan nidhaahno labadaba waan isku darnaa. haddaba ka xafiis ahaan anagu shaqooyinka ugu muhiimsan ee inoo yaala waxaa weeye bulshada beeraleyda ah sidii aan ugu secure garan lahayn dhulka ay leeyihiin lahaanshahayda ama warqadda lahaanshaha dhulka inaan siino weeye. saad ogsoon tihiin deegaankeena wuxuu leeyahay dhul lagu qiyaaso 10 milyan oo hektaar in ka badan. haddaba dhulkaas aynu sheegayno ee 10 milyan oo hektaar ah imise hektaar ama imise qof imise beeraley ah ayaa haysta xujadii lahaanshaha dhulka. waa su'aasha ugu weyn oo hadda markaa anageena hortaalo. waxaan ka xafiis ahaan qaadanay qorsho hadda ka horba aan wadnay laakiin nidaamkan u wadnay nidaam ka duwan inaan u galnaa noogu talagalnay oo ah 11 gobol ee deegaanku ka kooban yahay hal mar inaan u dirno tiimam kala duwan. tiimamkaasi oo soo sameyn doono mass registration ama diiwaangelin ballaaran ee dhanka dhulbeereedka. dhammaan xubnahan halka joogo ha ka yimaadaan waaxa kala duwan laakiin shaqadeena iyo objectivekeena waa hal. visionka inoo qoran ama hadafka annaga inoo qoran ee aan leenahay hal unbuu ka turjumaya.